waxaan idin leenahay maqla laakiin waxaan samaynaynaa arkinina annaguna waa diidnay waa soo jeednaa waxaan leenahay waxa samaynaysiin aan arkaynaa fiirinaynaaye waxa noo sheegaysiin ma maqlayno indho nuur badan aan qabnaa iyo dhaga aan wax badan maqlaynine waxna tusiya indhaha wax nagu tusa qofka dhagoolka waa la tusaa maahanoo waxa saan u soo dhagaysanayna warkiina waa na geli waayey dhagahayna waa ka owdan yihiin indhaan leenahay na tusa waxaad sheegaysaan intii uu shalay noo sheegay maanta dawladdiisa ayay haysataa sideen uga dhagaysanaa waxay noo sheegayaan ka dhagaysan mayno ficilkoodan eegaynaa ficilka ay soo wadaan ayaa muhiim noo noqonaya waxaan isdul taagi doonaa war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka waxaan iftiimi doonaa 3 qodob oo muhiim ah oo shirkaas ka soo baxay ummadda Soomaaliyeedna qiyaano ku ah dastuurkii dalkana qiyaano ku ah nidaam dawladeedna uunan ku sii shaqay karin barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa muuqaalkana waa muhiim haddii uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa fiidowga inaad like saarto sina share garaysa hadduu alla idmo ra'iisul wasaare laga maarmay meesha waa laga saaray maxay tahay ujeedada ka dambaysa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan dalka laba xisbi ayuu yeelanayaa sir baa ku qarsoon sirtaasna barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa waa sababta loo leeyahay dalku laba xisbi uu yeelanayaa waa ka shifaya banaankan keeni doona hadduu alla idmo dhinacii jamaahiirta SSC iyo jabhadda SNM warmurtiyeedka waxa lagu yiri waa in laascaanood iyo hargeysa ay heshiiyaan soo hore idinkuguma sheegin marnaba inuunan xasan sheekh raalli ka ahayn qaatuma state ila dhiso uu doonayo in libinta uu siiyo isaaq maanta waad u jeedaan libintii inuu la doonayo isaaq uu leeyahay dadkii xasuuqa laascaanood ka geystay waa in wada hadal la fura la isku soo dhawaada hargeysa iyo laascaanoodna ay wada fariistaan intuu barnaamij socdo waqti wacan ayaan ku rajaynayaa magacaygu waa Cabdullaahi Balwaan waxaan ahay wariye soo gudbiya xogta qarsoon aniga shaqadeeda xeego xifin waxaan idin leenahay maqla laakiin waxaan samaynaynaa arkinina annaguna waa diidnay waa soo jeednaa waxaan leenahay waxa samaynaysiin aan arkaynaa fiirinaynaaye waxa noo sheegaysiin ma maqlayno indho nuur badan aan qabnaa iyo dhaga aan wax badan maqlaynine waxna tusiya indhaha wax nagu tusa qofka dhagoolka waa la tusaa maahanoo waxa saan u soo dhagaysanayna warkiina waa na geli waayey dhagahayna waa ka owdan yihiin indhaan leenahay na tusa hadalkan madaxweynaha wuxuu yiri isagoo mucaarada ka soo horjeeday dawladdii farmaajo wuxuuna dadka maalintaasi ku bogaadiyay wax alla iyo waxay dawladdu idin leedahay ha dhagaysanina wax alla iyo wixii ficil ay samaynayso arka maanta dawladdiisana waxa haysata wuxuu shalay ummadda Soomaaliyeed ku yiri madaxweyne waxaad noo sheegaysaan idinka dhagaysan mayno ee waxaanu arkaynaa ficilkiina ayaana ku dhaqmi doonaa sababtan sida u leeyahayna isla madaxweynaha ayaa afkiisa ka soo xigtay warmurtiyeed baa soo baxay warmurtiyeedkaasna xalay waa la shaaciyay waxaa loo soo dhiibay wasiirka arrimaha gudaha maxaa loogu soo dhiibay wasiirka warfaafinta maxay tahay sababta Daa'uud Aways aan warmurtiyeedkaas loogu dhiibin oo wasiir fiqi loogu dhiibay maxay tahay sababta wasiir fiqi warmurtiyeedkaasi uu banaanka ula soo istaagay iyadoo waliba loo jeedo in xukuumadda ay wasiir warfaafin ay leedahay taas ayaa fasiraad u ah nuxurka arrinta aan ka sheekay doono horta inta ay la fahmaan ra'iisul wasaare laga maarmay dalku laba xisbi uu yeelanayaa waa laba qodob oo muhiim ah oo aan doonayo in ay dadku aad u fahmaan aadna waan u bayaani doonaa balse intaan u guda galin jamaahiirta SSC horta nacaybkii la idin qabay xalay banaanka ayuu yimid wax alle iyo wixii la idin sarbeebayay wax alle iyo wixii afka baarkii laga muujinayay annaga laascaanood aan taageersanahay annaga jamaahiirtan garab taaganahay waxa cad in xalay warmurtiyeedkii lagu soo qoray waqtiga baa la idin ka luminayaa jamaahiirta SSC dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud raalli kama aha qaatuma state anigu markii ugu horreysay idin dhahayo ma aha markastaan ku celceli jiray ujeedadana waan sheegi jiray maanta warmurtiyeedkii ku qoran tahay bal ila faham madaxweyne xasan waxaa ka go'an reer waqooyi mid ah inay koonfurta Soomaaliya ku biiraan ma rabiyo reer waqooyi dhulbahanta ka go'ay inay muqdisho saami weydiistaan wuxuu rabaa xuquuqda dhulbahante inuu dul dhigo xuquuqda isaaq oo wuxuu doonayaa in isaaq iyo dhulbahanta intuu isku qaado oo yiraahdo nuxurka gobolada waqooyi
intaasna libinta wuxuu u raadinayaa waa dadka isaaqa u dhashay wuxuu rabaa libintii dhulbahantay in la afduubo in baahida dhulbahanta la afduubo la yiraahdo isaaq baa kursi ku helaya deegaanada SSC warka horta intaasuu nuxurkiisu yahay xalana wuxuu yiri Hargeysa iyo Laascaanood ha wada heshiyaano wali wuxuu taagan yahay Muuse ka mas'uula Laascaanood jamaahiirta SSC wax miyay ka bedelaysaa maya hadal Muqdisho laga yiri SSC waxba kama bedelayso هذا لو مدحوينا حسن الشيخ محمود يري والله نسوي وحبة كبدرين إن أي إيق عصب كسي شفت موياني دادك كوا حراشة أي SSC قرب تاقن وحلو لما كرهبا يلاته ما تشيرتو وايد دقاق SSC وايد دقاق دونتا وايد سيستو عدونتا شخصي قدال لغا هاقا ينا وحبا أمر لما يحلقن كSSC انتا أن أغا قدبو جماهير تأيي وليبا قضب كيو قصيي اي حاليكو حسنا ورمرتياتك intaan nuxurka warmurtiyeedka u guda gelin labada qodob ra'iisul wasaaraha laga maarmay iyo dalku laba xisbiyo yeelana waxaan rabaa inta inaan idin sheego warqadii warmurtiyeedka aad aragteen waa mid Ismaaciil Umar Geelle min bilow ilaa iyo dhamaad uu diyaariyay ummadda waxba ka qaribay Ismaaciil Umar Geelle ka dambeeya maxay tahay sababta wuxuu rabaa SNM dhimatay inuu kursi uga raadiyo Muqdisho wuxuu rabaa isaaqii fashilmay ee ku fashilmay maamulka gobolada waqooyi inuu saami qaybsi uga raadiyo magaalada Muqdisho isla warmurtiyeedkii xalay waxa uu daaran yahay in la doonayo in dad nool oo siyaasadda lafdhabar u ah oo dalka deegaanadoodu ay nabad tahay in lagu afduubo Ismaaciil Umar Geelle intaba saxiixay laakiin dalka mas'uuliyadeeda Xasan Sheekh iskale maanta waxaan dhihi karnaa dambiga koowaad iyo kan labaad waa ninka dalka aynu u dooranay laakiin qofka isqarinaya ee daaha ka gadaal taagan annagu inaan sheegno kaliyaan xaq u leenahay ra'iisul wasaaraha laga maarmay ujeedka ka dambeeya ayaad ila fahmi doontaa si fiican barnaamijka u daawo dalku laba xisbi oo yeelanaya ayaan ka bilaabaya si aad u fahanto ra'iisul wasaaraha laga maarmay horta laba xisbi oo dalku yeelanaya xisbiga koonfur iyo xisbiga waqooyi xisbiga koonfur iyo xisbiga waqooyi haddaan si kala hadalka u yiraahdo إساق إيا هوية نقول دونتا حزب إساق إيا حزب هوية انت كلا الصومالوين وحلا ليه وإلا بدأ حزب أتكو كلا بيرتان حدا تهي ديقل إيا ملفلة حدا تهي دارات وإن تكمل نقطة حزب إساق أما حزب هوية سيدالك مدحوين إيا مدحوين كحجين وكلا قاتان هوية إيا إساق ماشانا اللوغة صارو وحي تستور أها اللي وهشيي burburkii dalka kadib aad ayaan u jecelayaa si fiican i faham labada xisbi ee dalku yeelanayo waa koonfur iyo waqooyi ujeedku waa isaaq iyo hawiye xisbiyadaasi waxa ku biiri doona digil iyo milifle iyo daarood digil iyo milifle iyo daarood ku biiraya qofka siyaasiga daarood wuxuu ku qasban yahay inuu xisbiga isaaq ku biiro ama xisbiga hawiye inuu ku biiro qofka digil iyo milifle wuxuu ku qasban yahay xisbiga hawiye inuu ku biiro ama xisbiga isaaq labadaas xisbina dalku uu yeesho labada xisbi marka maxay kala noqonayaan federaalka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen tusaale madaxweynuhu waa hawiye madaxweyne ku xigeenkana waa isaaq ama madaxweynuhu waa isaaq madaxweyne ku xigeenka waa hawiye hadda wada la fahanteen soo ma aan soo daadega marka awoodda federaalka kaliya ma noqon doonto marka Puntland waxaa ka arriminaya labadaas xisbi haddana dadka Puntland degan waa inay ku biiraan xisbiyadaas oo maanta xisbiga federaalka Muqdisho jooga ayaa hagaya doorashada Jubbaland doorashada Puntland doorashada Galmudug doorashada Hirshabelle doorashada Koonfur Galbeed iyo waliba hab qaybsiga gobolka Banaadir cilmiga aan lagu dhigin aqliga kaasho horta ujeedadu waa taas ra'iisul wasaaraha waa laga maarmana dalku madaxweyne ku xigeen buuba aadaba wax la yiraahdo hawi daarood ee loo ogol yahay kursi madaxweyne iyo kursi ra'iisul wasaare ma jiro wuxuuna dalku ku laabtay nidaamkii 1992 iyo 1991 Allah u naxariistay dawladii Ali Mahdi Maxamed oo ra'iisul wasaaraha laga tuuri jiray dhinaca waqooyi meesha waxa la rabaa marka in laga saaro wax la yiraahdo awoodii siyaasadda daarood waxaan marka anigu xalay ilaa iyo maanta aan la yaabanahay laba nin oo daarooda oo kala ah Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Xamza Cabdi Barra meesha fadhiya waxay raali ka noqdeen
awooddiid siyaasadeed ee daarood in la aaso waxay raalli ka noqdeen in ra'iisul wasaare meesha laga saaro oo madaxweyne ku-xigeen lagu bedelo anigu kuwaasaan la yaabanahay ma shaqay doontaa waa sheeka baraley waa uun iska sheeko runtaan idiin sheegaya meelay ka shaqay doonto malaha meelay u socoto iyo meelay ka socotona ma jirto hadda ka hor arrintan ninkii waday allah u naxariista hadda waa naga hooseeyaa oo waa uu dhintee ma dhihi karo hadda halkaan waxba ugama sheegi kareen mid siyaasi oo dhinta hadda ka hor sheekadan la yimid waa shaqayn weyday 2023 calaacasho tini ka soo baxday la mid tahay ma shaqaynayso cid laga dhageysanayana ma jiro annagu sadaaha ka gadaal ninka ku jira waxaan leenahay ismaaciil cumar geelow Soomaaliya waa foojigan tahay lamana qiyaari karayo waxay ku soo kordhay waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda